kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janaalkeena runta wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowlad goboleedyada dalka oo markan doonaya in ay awoodooda ay ku tijaabiyaan madaxweyne Farmaajo. qaar ka mid ah wasiirada maamulka Jubbaland oo eedeyn u jeediyay madaxweynaha maamulkaasi maxaa keenay inay eedeyn u jeediyaan madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaan daawadayaal warkeena idinkugu soo gudbin doonaa. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo markan qoys taagan sababta uu qoys u taagan yahay maxay tahay taliyihii hore ee NISA. wararkaasi guusha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaan daawadayaal warkeena ku soo qaadan doonaa. haddaba daawada haddii aad janaalkeena runta ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo share iyo commentiga noogu dadaala aan ku bilaawo qodobka ugu horeeya. qaar ka mid ah golaha wasiirada maamulka Jubbaland ayaa haatan waxay eedeyn u jeedinayaan madaxweynaha maamulkaasi. madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa eedeynta ugu xoogan waxaa dusha ka saaraya qaar ka mid ah golihiisa wasiirada iyagoona ku eedeynaya in uu wado awood uu ku doonayo inuu wax waliba uu ku sameeyo hase ahaatee doorashada qaabka ay ku soconaysa ayaa haatan waxay sheegeen in ay dhibaato weyn ay ku noqonayso shacabka qeybaheeda kala duwan. magaalada Garbaharey ee gobolka Gado wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dhibaato weyn ay halkaasi ka jirto iyadoona eedeynta ugu xoogan loo jeedinayo madaxweynaha maamulkaasi. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa golaha wasiirada ee isku baheebta ay yihiin madaxweyne Farmaajo waxay horey u sheegeen inayna marnaba u dulqaadanaynin waxyaabaha mararka qaarkood uu sameynaya. tanina waxay u muuqanaysaa in caqabad weyn ay ku noqonayso madaxweynaha maamulka Jubbaland. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa rajadiisa ugu weyn waxay ahayd in uu markastaba uu gacanta ku haysto kuraasta magaalada Garbaharey ee gobolka Gado. Garbaharey ayaa haatan waxay martigelinaysaa doorashooyin adag lama ogasa wax walba sida ay noqon doonaan inkastoo caqabadaha adag ay haatan lasoo sheegayo. caqabadaha adag ee haatan madaxweynaha maamulka Jubbaland oo la kulmaya ayaa waxay noqon doonaan in ay dhibaatooyin uu kala kulmi doono qaar ka mid ah golihiisa wasiirada. golihiisa wasiirada ayaa waxaa la sheegay in madaxweynaha maamulka Jubbaland inaysan ku qanacsanayn hanaan siyaasadeedkiisa. doorashada Soomaaliya ayaa haatan waxaa maalinba maalinta ka dambeysa isqa qabsi xoogan uu ka dhalanayaa habka ay ku soconayso inkastoo aan la ogeyn wax waliba halka ay mari doonaan. dhinaca kalena Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa waxaa haatan soo wajahaya culeysyo aad u adag oo ku aadan arrimaha doorashooyinka. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxaa la sheegayaa in culeys xoogan uu kala kulmayo qeybaha kala duwan ee beesha uu ka soo jeedo. wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in Fahad uu haatan uu qoys u taagan yahay xilli la sheegayo in madaxweynaha maamulka Hirshabelle uu garab uu ka helayo. hase ahaatee kooxda Filla Soomaaliya ayaa haatan waxay u muuqanaysaa in niyad-jab ay ka taagan tahay kursiga Fahad Yaasiin. kursiga Fahad Yaasiin ayaa waxa uu u muuqanayaa mid qalqal xoogan uu ku jiro inkastoo aan la ogeyn wax kasta sida ay isku bedeli karaan. dhibaatooyinka kala duwan ee haatan doorashada ka taagan ayaa waxay u muuqanaysaa in culeysyo ay jiraan. dhanka kalena Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa guul taariikhi ah ka gaaray doorashadii ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in siyaasiga weyn ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu haatan u muuqanayo in guul taariikhi ah uu gaaray. doorashada ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay ahayd mid taariikhi ah isagoona haatan u muuqanayo inuu guul weyn uu gaaray. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjeedaan siyaasadeedka kooxda Filla Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in xaaladdu ay adag tahay inkastoo ay kooxda madaxweyne Farmaajo ay rajadeeda ay ahayd in ay guuleystaan oo isla markaana ay ka taqlusiyaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo shakhsiyaad ka taageero. balse haatan waxay u muuqanaysaa in Cabdiraxmaan Cabdishakuur guul taariikhi ah ay u soo hoyatay isla markaana uu dhammaanba uu ka taqlusiyay kooxaha sida weyn uga soo horjeeda. wararkii ugu dambeeyay ayaase waxay sheegayaan in doorashada weli ay tahay mid xamaasad badan leh inkastoo madaxweynaha maamulka Galmudug haatan weji kale uu la soo baxay oo ku aadan in uu taageerada uu kala laabtay kooxda Filla Soomaaliya. caqabadahana adag ee haatan soo baxaya ayaa waxay u muuqanayaan kuwa culeys xoogan ku noqonaysa kooxda Filla Soomaaliya. dhanka kalena
madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa haatan waxa uu doonayaa inuu gebi ahaanba uu ka taqlusiyo kooxaha sida weyn uga soo horjeeda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo kadib markii horey loo sheegay in madaxweyne Cali Guudlaabe uu taageero mar kale uu noqday Farmaajo haatan waxay u muuqanaysaa in awoodda doorashada uu doonayo inuu wax waliba uu ku maqooniyo tanina waxay ka dhigan tahay in ay dhibaatooyin kala duwan ay mararka qaarkood ay jiri karaan xilli maalmihii ugu dambeeyay ay jireen culeysyo kala duwan oo ku aadan arrimaha doorashooyinka hase haatee madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa haatan waxa uu u muuqanayaa in uu isbedel wanaagsan uu sameynayo balse wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan heshiiska Farmaajo iyo sidoo kale Maxamed Xuseen Rooble in uusan marnaba noqonaynin mid natiijo wanaagsan dhalinaya inkastoo wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in xaaladaha adag ee haatan Farmaajo iyo sidoo kale Maxamed Xuseen Rooble in maalinba maalinta ka dambeysa ay ka sii dari karaan lama ogasa wax kasta sida ay noqon doonaan balse dadka sida weyn u falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in ay dhibaatooyin kala duwan ay ka dhalan karaan qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa horey waxa uu u ballan qaaday inuu taageero ugu muujinayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dhibaatooyinka doorashooyinka ayaa haatan waxay u muuqanayaan mid saameyn badan ku yeelanaya shakhsiyaadka ka soo horjeeda Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dhinaca kalena daawadayaal wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya in uu markan uu doonayay in uu awood mar kale uu ku yeesho doorashada Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hogaamiyihii hore ee Soomaaliya ayaa haatan waxa uu doonayaa inuu dhammaanba ka awood roonaado kooxaha sida weyn uga soo horjeeda hanaan siyaasadeedkiisa lama ogasa wax waliba halka ay mari doonaan inkastoo xaalada adag dalka waqtiga kan uu ku jiro oo ku aadan arrimaha doorashooyinka haddana Xasan Sheekh Maxamuud ayaa rajadiisa iyo riyadiisa waxay tahay inay soo baxaan xildhibaano asiga ka amar qaato isla markaana uu ku tashto doorashada Soomaaliya natiijada doorashada ayaa waxay u muuqan kartaa mid wajiye fara badan dhalin karto inkastoo maalin kasta ay jiraan arrimo adag oo ku aadan xaaladaha kala duwan ee mararka qaarkood jiri kara oo ku aadan arrimaha doorashooyinka doorashada Soomaaliya iyo caqabadaha taagan ayaa haatan waxay u muuqanayaan in maamulka gobolka Banaadir qarash fara badan ay ku bixinayaan kooxaha sida weyn uga soo horjeeda Farmaajo in laga taqlusiyo sidoo kale midowga musharaxiinta waxay haatan rajadooda ay tahay inay awood ay ku yeeshaan doorashada lama oga wax kasta sida ay noqon doonto haddana cabsi xoogan ayaa jirto oo ku aadan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedada oo doonaya inay awood weyn ay sameeyaan oo ku aadan in gebi ahaanba laga taqlusiyo Farmaajo iyo kooxdiisa Farmaajo iyo kooxdiisa guulaha ay haatan ay gaarayaan waxay ka dhigan tahay inay natiijo wanaagsan ay u tahay guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibada aan jecelnahay oo anaga inta hadaba daawada haddii aad janaalkeena runta ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like iyo share iyo comment-iga noogu dadaala waadna mahadsantihiin nabadgelyo